كورن نين هبانكي أو دن تاجن مالنتي أو دن أفحرنا صومن إلهي درتي سبحانه وتعالى هبانكي أو دن تاجنيه هو تاجنيه صلاة الليل صقد دحه حلا جيدتكم ذا هردان وعبادة سنية مالن أو دن أفحرنيه أو صومنيه إلهي درتي سبحانه وتعالى نين كان نوع عاصيه بريته ولا هالكو قال بعض مرين إنسان يا هبان أو دن وحو تاجن عباده مالين oo dhan waa afxiran yahay uu sooman yahay darajo inta lag buu ilaahay agtiisa ku leeyahay subhanahu wa ta'ala lama qiyaasi karo sooma ilaahay markuu ka waramay ahlul jannah muxuu lahaa fi surati ad-dariyat kanu qalilan min al-layli wa bil ashari hum yastaghfirun ودتك أهل الجنة ساسي هبينك أهايم بالله سبحانه وتعالى إن يرى يربي كسي حنجر أنت قالوا لنا عبادة تاجين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ننك النوع عاصية أذيقوا إسكهر دقوا صلاة الليل بقى أنكعين أو أن صومنين أيات جاري كرتاها دي أضلت ما دا شيء كليه كور أظن هبين كيف صلاة الليل تكن ولكن ده واجباتك الله كسارك أذك أصلا فربنا أنسو من أياد منك النوع عصو كلا أجاري كرتا شيء يرو كليه هذا تمشيتكو جارسا رسولك الشيخ عليه الصلاة والسلام وحيري إن المؤمن اللهم اجعلنا من المؤمنين إلهي مؤمنين نقدقوا إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم ninka mu'minkiihi dabeecadiisa wanaagsan wuxuu ku gaari karaa buuri ninka sooma ee qaa'imka habeenkii oo dhan taagan ayuu darajadiisa kala gaari karaa tayib hay saaf bad qaadatay meelaha dadka ku dhacaysa waxaan leedahay muslim baanahay dadkii baa ad aflagaadeynaysa ama warbaahin bad ku aflagaadeynaysa ama joornaal bad ku aflagaadeynaysa ama meel kale wax kaga sheegaysa dadkii baa ka badbaadila qofkii inta dhaaftaan qabiilkii ad gaarso qabiilku ka badbaadilay dadka ugu xun ma taqaanaan waa dadka qabiilkuna ka badbaadi waayaan tayib wuxuu rasuulku alayhi salaatu wasalaam innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajata as-sa'imi al-qa'im qofka mu'minkiihi dabeecadiisa wanaagsan wuxuu ku gaarayaa darajada as-sa'imi wal-qa'im ka waran adiga oo meel socda ayaa baabuurku ka banjaray soo ma ogidna akhlaaqda fiican inay tahay arzaaq ilaahay bixiyo mala socdaan sida rasuulku wuxuu alayhi salaatu wasalaam ilaahay arzaaq akhlaaqdii nuu qaybiyay sidoo arzaaqdeedii ku qaybiyay haddaad aragto nin ghaniya oo aad aragto nin faqiira يا كلا بحيي الله سبحانه وتعالى نين أخلاق لا نين بلا أخلاق كاسور بحي يا بحيي الله سبحانه وتعالى مركا إيه واحد كدر ستاجد ولك وحلاقي يا بدك قاركود إن أرزاق لا أويا قانون العقد لا تيرنا يا إيو أنت بانك كوتا لا إيو أنت بابور ولا هي أنت قرية ودستيو تاسا لقي يا بين مركا عددكم مركا التلمام يا رهدان نين كاسنين مركا تاجر ويان وحقو تاجر كل عقد بدن بوله قرية بدن بول دستي لكن هذه قاعدين أخلاق ذا وحكي صفر أخلاق ذا لما تيرنا محل تيرنا يا مركا أدون كاسلا تيرنا بس وحلاقي يا بانك إنه عيب بدن هي يسقوا غني يا أو هذا يا دتك كبد بادي لاين فقراء دي بكبد بادي لا دتك كلا كبد قرابة ما حريريو وجوي لعقت لك قارنا يا بوس لي هي عيب ولا سو تاجي هي إلهي وحد أنت تقولي مساكين مركوي مادان إلهي وحد أنت لا إله إلا الله هذا ليس من الأخلاق في شيء طيب adigoo baabuurkii wata ayuu baabuurkii ka banjaray dad baa ku wada agmaraya miyaanay jirin dad ku soo laafta oo wax kula qaftay ilaa inta baabuurku dhaqaaqay ma jiraan dad iska ka dhaafin ma jirin haykoona maxaa ku dhaafinaya kana ku soo leexay bal sheega ya bal hala sheego ninkani ka tagi ma ilaa baabuurku dhaqaaqo kana uu soconaya hadaanu marka hadaad ka badbaadaba weeyad hadii kale uu kacay wadaad waa la iska soo kaxaysta baa gaariga hay isagoon garanay bas loo banjariyo ninna uu ku yimaanaya sheekh muu ka banjaray Allah ku barakeeyo ma sha Allah kan mara sta jaakbaanihi soo qaadanaya uu kula faahdo iska daagulay la ilaaha illa isma garanaysaan waa nin muslima bas
muxuu ilaahay ku qurxiyay ninka akhlaaq wanaagsan buu ilaahay ku qurxiyay subxaana wa tacaala nin miskiin oo tabaalaysan buu arkaya uu salaaxanaya waxbuu siinaya meel buu fadhiisanaya ka kalena waxa weeyaan iska dhaafaya meel wuxuu soo maraya marka qof lagu haysto iska agmaraya kan kale miya uu ka qabanaya islaax buu ka dhalinaya nin baa maalin wuxuu ku soo bayray laba qof oo is haysta waxay isku haystaan lacag ay kala qaateen markuu ku soo bayray waxa weeye labada way ka dhan tahay kan miskiinka wuxuu leeyahay ma haysto waxaan imika ku bixiyo ma haya kan kalena wallahi inaanad la dhaqaaqin buu leeyahay marka ma ogtahay qof haddaad dayn ku leedahay ilaahay subxaana wa tacaala akhlaaq fiican ayuu inagu hanuuniyey oo aan kula dhaqmayno qofka dayntaan ku leenahay fi suurati albaqara ilaahay muxuu yidhi wain kaana duu cusratin haye fanadiratun ilaa maysara وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون هذا نين دين كل هذا هي لما بدون بنقرأ نين كاس نين مسكينه أنا إسكب حين كرين دينكي أذيك ما دام إلهي سبحانه وتعالى وحكسيي حقاقي وضعف لكم لها إلهي وحري فناظرة إلى ميسرة إلى أنتم كفوا ظانيو سك ولبا أدري كلا أو فربنا برسولك الشيء نين قف ودين كل يهي السجاه بريتوله waxa looga yeeraya dadka oo dhan baa looga dhaxyeeraya awe hebel waa kan ilaahay baa jannada gelinay subhanahu wa ta'ala hadii laakiin aan waxba haysan oo wax bixin karayn waxa weeyaan waad u sii kordhinaysa hay bishan kalena ku darso wuxuu ilaahay laakiin wa an tasaddaqu khayrun lakum in kuntum ta'lamun hadaad laakiin ku sadaqaystaan baba ka sii khayr badan waa hadaad wax fahmaysaan in kuntum ta'lamun waayo بريتوله marka la isku yimaado waxaa baritoole marka la isku yimaado la oranaya nin kasta oo ajrigiisa ilaahay ku lahaa hasara kaco ya saraka ayadu maleynaysa waxa saraka ay nin kasta oo nin saamaxay oo cafiyo deyn ku lahaa ayaa saraka ay soo socda la oranaya idinku ajriga ilaahay baad ku lahaydeen gala jannada la oranaya marka maxaa u daliila faman afa wa aslaha fa ajruhu ala man ala Allah waka ninka iska cafiya dadka ee wanaajiya kaasi ajrigiisa ilaahay buu kaleeyay subhanahu wa ta'ala cid kale kuma laha fa ajruhu ala Allah tayib ninki waxa dhacay marka lacagtii uu bixiyay marka adoo imsad ku leedahay ninkan intaasan ku leeyahay waa ka intaadi qaado wala yaabay yaani akhlaaq waxay noqotay markaasi gariiba waayo dadku inay marka dadka kale islaaxiyaan oo bas ay yiraahdaan war walgu siin doona annaga ka damiino mooyaane may aragba in la bixin karo lacagtii oo imikadan ba ninkii uu bixin karo islaaxin karo ninkiina uu yaabay wax ku lahaa ninkii qofkii lagu lahaana uu yaabay ilaaban kugu dhaarshay labada qof ee la islaaxiyay ninka islaaxiyay waxa ku kiciyay inuu dadka islaaxiyo waa maxaad u maleynaysaa ma quruxda maya ma lacagtan iyo maalku ma lahaba maya وأخلاق في عن إلهي قلبي سكو أبو سبحانه وتعالى نسأل الله أن يرزقنا الأخلاق إلهي نقول أرزاق سبحانه وتعالى قريقة جنة ماشي أقصر يسا قريقة كويا الله عدة لوحويان وعدة أخلاق دي سفيعنا توصيدا سنصو بناها يدي صلى الله عليه وسلم جنة قريها أقصر سرية عدة إسكاله وعدة أخلاق دي سفيعناته سيدانا وحا يدي صوبناها صلوات ربي وسلامه عليه وحو رسولك عليه الصلاة والسلام أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه ورسولك عليه الصلاة والسلام أنا أقول وحان الضمانة قاضية قولي حق السرد جنة حق السرد كيالا عدة أخلاق ذي سؤال في عناته يا ضمانة قاضي رسولك ضمانة قاضي يا كيري ضمانة قاضي إله وين واحد كجنة إسكاله وأي واحد سوق أن وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ونضم ما نقض يا رسولك عليه الصلاة والسلام لمن حسن خلقه عدة خلقي سيدق كيس ونكسن هذا وحان أضم ما نقض يا رسولك عليه الصلاة والسلام قري جنة حق سلكو يا الله الله أكبر السهل اللين من أهل الجنة قفك الدبع سن markaas dadka u dabacsan waa ahlul jannaha dadka ahlul jannaha weeyaan waa dadka ahlul jannaha ninka qalabsanay adagna waa dadka ahlul naarka weey wal iyad billah ilaahi subhanahu wa ta'ala haduu ku dhaliyay inaad dabacsanaato oo dadka u dabacsanaato faqiirka ghaniga jaahilka caalimka intaba aad u noqoto qof u dabacsan
waxaad leedahay sifaadkii dadka ahlu jannaha sidaas rasuulka inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam man kaana sahlan layinan qariiban xaramahu allahu cala annaar qofka dabacsan ee dadka u dhow ee markaasi dhaqanka fiican leh kaasi ilaahay wuxuu ka xarimayaa naarta macnaha naarta kaasi gali maayo ugu dambeyntii ikhwaani fi lislaam akhlaaqda wanaagsan ee aan rabno inaan ku dhaqanno xabad xabad baynu u qaadanaynaa dulqaadka carada oo markaasi layska liqo runta beentoo laga fogaado waxaasoo dhan ba waa akhlaaqda wanaagsan aan rabno nafteenna inaan ku tababarno tani waa guud ahaan fadaaisha ku sugan akhlaaqda waxaan kusoo gabagabaynayaa rasuulkeena moxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa waxaa uu tilmaamay 4 arrimood haddii ilaahay ku siiyo subxaanaه wa tacaala waxalla wixii adduunka ku dhaafa waxalla waxay kaa dhibayaan ma lahaba rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam 4 arrimood haddii lagaa helo 4 arrimood haddaad leedahay wax kastaba adduunka ha ku dhaafaan 4ta haddaad leedahay waxba kaama gelin maxay tahay 4tu markaa wuxuu rasuulku yidhi 4 إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا كو حفظ أمانة 2 صدق حديث 3 حسن خليقة 4 عفة طعمة أو طعمة 4 تاني وحا ايتهي كو إن أمانة حفظ لهاتو وأمانة لوجودي بتاع حفظها أما هنقطه مال أما هنقطه هذا نبى هذا الكوكو أمانة يسنكر sirbu ku sheegi karaa amaanay kugu tahay adiga amaanatun fi unuqik gabadha midlan uu rabaa inuu guursado wuxuu qori hablaayadaas aan rabaa inaan guursado cidna ha u sheegin waxa laga rabaa ilaa inta uu guursanayo inaan cid u sheegin in amaanay kugu tahay hadii laakiin aad sheegto waxa tahay nin amaanadii loo dhiibta khiyaamay arinta labaad waxay tahay sidqu xadiis hadal sheeko runa haddii sheekada aad ku sheekaysaa ay run tahay mutaabiqa lilxaali walwaaqic dee qof waxaa tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala uu wax wanaagsan adduunka ku siiyey 3 xusnu khaliiqa dabeecad wanaagsan 4 macam iyo cunto xalaala haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kaa dhigay mid arsaaqda oo cuna oo meeshaad ka kasbanayso iyo meesha aad wax ka helayso iyo meesha aad ubadkaaga wax ka siinaysaba ay tahay meel ilaahay subxaanahu wa tacaala uu xalaaleeyey intaa haddii lagu siiyo oo 4taa shay ilaahay ku siiyo subxaanahu wa tacaala adduunka wax kastiba ha ku dhaafaan waxba kaama garin limaada liannaka min xisbi illah alaa ina xisba allahi hum lmuflixuun ilaahay subxaanahu wa tacaala haynoo dembi dhaafo ilaahay subxaanahu wa tacaala camalkeenna ha wanaajiyo ilaahay qalbiga haynoo nuuro abaaraha allah haynaga saaro ilaahay subxaanahu wa tacaala kuwa akhlaaq fiican haynaga dhigo qabriga iyo qiyaamaha ilaahay subxaanahu wa tacaala haynoo sahlo sakaraatulmowtka allah inoo fudaydiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala